الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. walaalyaal ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala. khudbadeennii hore waxaanu isku xusuusinay walaalayaal jimcihii inoogu dambeeyey qofka muslimka ilaahay subxaanahu wa tacaala arladan uu ku dhaqay in ilaahay subxaanahu wa tacaala kownkan u sakhiray loogana baahan yahay si wanaagsan inuugana faa'iidaysto ummaddana uga faa'iideeyo. hadduu ganacsi samaynayo, hadduu warshado samaynayo, hadduu waxa weeyaan aqoon soo kordhinayo, hadduu beeraha qodanayo, hadduu badda ka faa'iideynayo, wax kasta oo uu ka shaqaysto niyad wanaagsan uga shaqaysto in adduunyadana manfac uu ka helayo, niyadiisu hadday wanaagsanaato aakhirana ajar uu kaga helayo. waxaanu soo qaadanaynaa maanta qodob ka mid ah waxyaaladii si guud aynuga hadalnay oo ah ganacsiga oo laga hadla walaalayaal qaybo badan ayuu u baahan yahay oo marba mid la isdul taago. waxaynu u baahannahay ganacsiga xalaasha ah iyo barakada uu leeyahay iyo sifaadka looga baahan yahay qofka ganacsadaha ee muslimka ah inuu ku sifaysnaado. marar badanna waa ka hadalay. ganacsigu sidiisaba walaalayaal sidoo kale waxaa u baahan laga hadlo noocyada ganacsiga ee laynoo diiday, laynaga reebay, ee dadkana dhibaatada u leh, qofkana ciqaab iyo naar uu ku mutaysanayo. waxaa sidoo kale muhiima shuruudda iyo iibabka waxyaalada mucaamalaadka la gelayo in lagu baraarugsanaado. ganacsigu sida aynu sheegnay walaalayaal wuxuu ka mid yahay waxyaalada ilaahay u xalaaleeyey addoommada. wa axalla allaahu albayca wa xarama alriba. ilaahay bayca waa xalaaleeyey, ribadana waa xaaraantimeeyey. bayca iyo wax kale iibsigu iyo iibintu manaafic fara badan bay leeyihiin. ka wax iibinaya ayay manaaficu leeyihiin, ka iibsanaya ayay manaaficu leeyihiin. waa laga yaabaa qofku inuu is idhaahdo yacni waxa weeyaan kan ganacsadaha uun ayaa markaa waxa weeyaan danaysanaya, laakiin waa la isku danaysanaya. xoolo kasta haddaad haysato cid wax kaa iibisaba aad weydo dhibaatadeeday leedahay. wax kasta haddaad haysato ood u soo diyaargarowdo inaad iibiso, cid kaa iibsato aad weydana dhibaatadeeday leedahay. sidaa daraaddeed waa la isku baahan yahay. dadkuna darajadu doono qofku ha gaadho, qof maarmaa ma jiro. qofka kale walaalkii unbuu u baahan yahay. waxaa qofka walaalkaa gacantiisa ku jira ee uu leeyahay ee mulkigiisa ah wuxuunbuu kuugu soo wareegi karaa ood ku yeelan kartaa dariiqo xalaala haddii aad u marto. haddii aanad dariiqo xalaala u marin waxaase xalaal kuu noqon maayo aad la soo wareegtay. lidaalika tijaarada waa ganacsigii wixii uu ka shaqaysan jiray nebigeennu calayhi salaatu wasalaam intii aan la soo dirin. waa shaqadii ay ka shaqaysan jireen in badan oo ka mid ah saxaabadii ugu waaweyneed sida abibakar iyo cuhmaan binu cafaan iyo waxaweye cabdiraxmaan binu cawf iyo in badan oo kaleoo ka midi. barakadeeday leedahay qofku markuu isagoo cibaadaysanaya ilaahay tala saarto ee uu suuqiisaa galo. wuxuunbaa muhiima inuu iska hubsado mucaamalaadka uu samaynayaa shareecada ilaahay ma waafaqsan yihiin mise ma waafaqsana. haddii uu niyoodo qofku weliba shaqadiisa inuu ku dhowrsoonaado naftiisa iyo ubadkiisa iyo oolidii reerihiiskiisu ay ku dhowrsoonaadaan
ajar buu ka helayaa wuxuu kaga duwan yahay qofka ganacsadaha ee muslimkii waa qof diintiisa ilaashanaya waa qof akhlaaqdii ganacsiga muslimka ganacsadaha muslimka ilaalinaya waa qof doonaya duunigiisa inay maraan wax xalaala oo aan bari ciqaab iyo naar iyo dambi ay u soo jiidin waxa muhiim ah inuu ku baraarugsanaado wixii loo diiday ee shariicadeennu inaga reebtay laga ganacsado waxa muhiim ah inuu ku baraarugsanaado qaababka aan bannaanayn ee manhiga waqti baa la joogaa fitankiisu uu badan yahay shubahaadkuna ay aad iyo aad u badan yihiin waxyaalo badan oon xalaal ahayna oo xaaraamana xalaal loo yeekaysiinayo sidaa daraaddeed qofku wuxuu kaga badbaadi karaa iimaan iyo alla ka cabsi iyo inuu aad iyo aad isku ilaaliyo waxaynu maanta isdul taagi doonaa dhowr ka mid ah ganacsiyada qaababka aan bannaanayn waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano tadfiifku wuxuu ahaa nooc ganacsiga loo adeegsado oo ahayd dadku markay wax kala miisanayaan amba kala miisaamanayaan inay isbakhsi jireen oo qofku uu yaraynayo qofku wax u miisay wax ka dhimaayo amba qofku wax u miisaamayo waqti kastoo la joogana sidaasunbay noqonaysaa hadduu qofku ku ciyaaro waxa uu miisaayo amba uu miisaamayo amba uu tirinaayo amba duuduubkaba uu iibinaayo waxay noqonaysaa qof tadfiifkaasi ku dhacay ilaahayna uu ciqaab buu u yaboohay dadka hoog baa u sugnaaday buu yidhi rabbi dadka mudafifiinta oo ah aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun dadka markay wax ka miisanayaan ay ka miisaamanayaan dhammaystiran kula soo wareegaayo isagu wixiisi si wanaagsan buu u tirsanaya u dhammaystiranayaa waidaa kaaluuhum oo wasanuuhum yukhsiruun laakiin dadka markay ka iibinayaan hoos bay u dhigayaan kiiloogi aan dhammaystirnayn buu ka iibinayaa waxa weeyaan tiradii waxbuu ka dhimayaa taasi waxay noqonaysaa qof wixiisii xaqiisiina dhammaystiranaya dadkana xaqoodii wax kala hadhaaya noocu doona ha noqdo yacni hataa dadku mararka qaarkood saacadaa la yskugu shaqaynayaa waxyaalaha laga isweydaarsanayaa qofku wixii lagu heshiiyey in loo dhammaystiro ayay mar walba soo gelaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray nin wax miisaamaya wuxuu yidhi miisaam oo rajax bimacnaa isleekaysii miisaanka iyo waxaad miisaamayso haddaanad qofka mucmiilkaa aanad u badinahayn waxa ka dhimi waxaa laynoo diiday waxaa loo yaqaana qishku waa khiyaano waa qofkii oo dadka u muujiyaa wuxuu ka iibinayo waxaan ahayn alaabtu iibinaya in wanaagsan badda soo dhigaya xagga hore qofka uu tusaya markuu yidhaha qofka intaa iga siina qaaran wanaagsaneyn buu ugu dhex daraya amba alaabu inta muuqata ee muunadii way wanaagsan yihiin goordhowna in khariban baa hoosta loogu tegaya waxay yidhaahdeen waa inuu qofku qariyo ganacsadihii ceebta ay leedahay bidaacadiisa uu iibinayaa dadkana wanaaggeeda u muujiyo amba sidoo kale waxaa soo gelaya culimmadu inuu yacni waxa weeyaan been ka sheego taariikhday soo baxday iyo taariikhday dhacayso waayo waa lagu qori karaa jawaankii haddaad ku soo qorto wakhtigaas ayuu soo baxay iyadoo meel uu kuugu xaraysnaa dee qishkaabay noqonaysaa waxaa soo gelaya waddankii soo saaray waddan aan ahayn in lagu soo qoro dawada waxaa la jecel yahay reer yurub baa la jecel yahay so intuu meelaha kale ka keena buu ku soo qoraya alaabta waxaa la jecel yahay waddan heblaayo Germany baa la jecel yahay soo waxa weeyaan ku soo qoraya isagoo hadduu doono China ka keenay waxyaaladaasi wuxuu noqonayaa qish waddanku doona ha ahaadee waa xaqiiqada iyo waxaad iibinaysaa waa inay iswaafaqsanaadaan waxaa soo gelaya shayga sifaadka uu leeyahay inaad been ka sheegto
xayeysiisyada mararka qaarkood ayaa meeshad furtabaadi solanaysa maraakan unba wixiisa lagu liibaanayaa oo caynkan dawo caynkaas baan hayaa waa biriri hadaad isticmaasho waa ta caynkana waxaasoo dhan waxa loo baahan yahay qofka muslimka inuu iska ilaaliyo iska dhowro hadduu dhakhtar yahay hadduu ganacsade yahay hadduu wax soo dejiyo hadduu tafaariiqu yiminayo mar walba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray maalin nin iibinaya timir oo suuqa soo dhigay markaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam oo dusheedu wanaagsan tahay nabigu gacantuu hoos u geliyey timirtii uu iibinayey xaggii hoos ugu tegay biyo ayaa dhex fadhiya سير وام حيوحني سير رسولك إلهي روبا بياكل دات روبا هلايو أصابته السماء روبا هلايو ويرقيد وحمد وين معها وحقه صوم سير تنها سمعت سوس الرئيسي ودتك تسدين عين كنت هاي سير أيور رالي أم بوقت كان أم بيوقاتا من غشنا فليس منا قفك وحنا قريان خيامية نجمد ما أبو النبي صلى الله عليه وسلم إذن وحلو بهاي تانا إن لقد دكتونا وحكى له كم ذا وحنا غنى له الشرع له نودي دي قفك جن عصرها لودي دي إنه دارته سيوقا عي قفك الوحكي بنايو أما وبين وقد دارته قيمها وحوي بنايو iyadoo $10 ay ku joogtay ayuu oranay wallahi anay $15 igu joogtay uu ku dhaaranay waa dhaarbeena maxaa kugu kalifaya dhaarta iibi waxaad iibinayso inta doonta si intay doontaa ku gaadho laakiin dhaarta iska dah sideedaba dhaartu ma wanaagsana haddaad been ku dhaaratana dambi weyn bay noqonaysaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi dhaartu silcadana way socodsiisaa barakadana way ka qaadaa waa laga yaabaa in wixii laga iibsado laakiin bilaa baraka ay noqoto waxba ma faa'iido haddaanay baraka kula socon sidoo kale nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam isagoo ka hadlay qofka been u dhaarta khatarta uu leeyahay marka wax iibinaya qofka been ku dhaarta saddex buu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay maalinta qiyaamaha in naxariis la ku eegi maayo umana dambi dhaafayo cadaab kulul way leeyihiin waxa kamida saddexda saxaabi maqlay baa yiri rasuulka ilaahay kuwaas way khasaareen way hoogeen waayo waxa uu yiri waa qofka isagoo xaraga uga jeeda maradiisa dheereeya ilaa yaani waxa weeye kulaama yare hoosa ay dhaafaan amba maawisa noqoto amba surwaal ha noqoto amba qamiis ha noqoto xaragu ka deeya wixii rasuulku diiday kalabaadna waa mannaan qofka qof intuu wax u qabto amba wax u taro kuma ni sheeganayo miyana waxa ku sameyn miyana halka ku geynin miyana shaqada ku siinin miyana maalinta waxa ka qaban ka saddexaadna waa qofka ku dhaaranaya dhaar beena si wuxuu iibinayo uu socodsiiyo khatartaas ay leedahay muslim baa wariyo xadiidka توقو دنبيسا walaaleel waa ribada aynu garanayna halka shariicadu ay gaarsiisay ilaahay ayada iyo xisbar bandhiga xalaalnimada iyo xaaraantinimadeeda bayci oo dhan ilaahayna waa u diiday dadka muuminiinta oo wuxuu yiri rabbi subhanahu wa ta'ala dadkii muuminiinta ahaayo la taakulu riba ribada cunina ayadoo istul saaran oo adcaaf almudaacafa ribadu way noocyo badatay muamalaadkina aad bay wada dhex gashay dadka qaar koodna waxaba ka dhaadhacsan waqtigan la joogo ee bangiyadu shaqeynayaan caalamku isku furmay inaan laga maarmi karin meel ka soo joogta ribada waa la iska ilaalin karaa oo waa iska dhowri kartaa hatta bangiyadii gaalada markay muslimiinta ka baydheen ee ay sameysteen waxa weeyaan bunuug islaamiya waxay sameeyeen khaanado amba waxay u dhaahdaan daaqado marka waxa weeyaan islaamiya oo lagu oranayo qaabkii islaamka oo galaabaan waxa weeyaan kaaga ganacsanayna haddii ay waafaqdo marka culimada u bandhigto meesha doonta aad joogtid waad qaadan haddii kalena waad iska day marka inaad iska hubsato
talabaad wadan gaalaha hadan ka soo qaato deyman dulsaara oo riba ah kadibna wadanka muslimiinta aslan ganacsi ku samaysto ma noqonaysa wixii aad qaadatay dul riba iyo waxaad ku dhiseen ribo xaraan buu noqonaya waa loo baahan in laga digtoonaado noocyadeedu way farabadatay rasuulku wuxuu ku daray 7 dambiye ugu waaweyn ee uu yiri ka fogaada waxa ugu sahlan buu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam noocyadeeda qofka oo wal ciyaadu billah hooyadii wax ka daya ayaa sawiradeeda amba noocyadeeda ugu sahlan wixii kalena way ka sii daranta aad bay mucaamalaadka maanta dadka muslimiinta siyaabo badan lagu cunsiinayo waxyaalada loo baahan yahay laga digtoono waxa kamid ah ixtikaarka oo ninka ganacsaduhu alaabta dadku u baahan yihiin iyo raashinka u baahan yihiin intuu istooda dhigto oo dadku marka ay ka goodo uu soo saaro lacagta ku qaaliyeeyo qofka caynka u qasta ee ugu tala gala isaguna dambi weyn buu ku jira wal ciyaadu billah waxa ugu dambeynaynu baraarujinayna walaalayaal waxa aad hadda inoogu badan dhalinyarada waliba si gaar ah u dhex qaadaya mucaamalaad laga ciyaarayo elektrooniga oo khamaarkii shariicadu xaaraantimaysay wan egsbid iyo magacyo badan oo fara badan buu leeyahay dhalinyaro fara badan waxay hadhiyo habeen ku fooraraan waa qamaar ay lacag ku shubanayaan oo qolo la wada ciyaarayo oo go'do leeyahay hadaad sidaas sameeyo inta aad helaysa mar walba waxa weeye xoolahoodii ay ku dhamaadeen oo qofku isleeyay bal imka hadii laga badiyo haddana in kale ku shubo la soo noqo maalmo dhaweyd magaalada waxaan ka arkay dad isdilay markay xoolahoodii oo dhami ku tageen ee wuxuu caruurta masruufka u siinayay ku bixiyay yaani waxa weeyaan isdilay baa waxa weeye baraabulshada la soo dhigay oo dadkay barooreeyay hooyadii waxa loo baahay walaalayaal mucaamalaadkaas aad bay dhalinyarada ugu badan tahay intaas oo magac baa loo sameeyay markay mid culimadu ka hadlaaba mid kale u bedelaya magac kale waa waxyaalo la soo dejisanayo oo lagu ciyaarayo mararka qaar kood kubadahan iyo waxaan la ciyaaraya lagu tartamaya mucaamalo kasta oo laba dhinac ah oo dhinac waliba uu wax dhigtay oo khasaare iyo faa'iido uu ku tala galay oo amba uu khasaariyo amba uu faa'iidayo waa qamaar weeyaa noocay doonay magacay doontaa lahaato ilaahayna subhanahu wa ta'ala wuxuu isku lamaanay mar walba khamriga iyo qamaarka inma al-khamru wal maysir wal ansab wal azlam rijsun min amal ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun bi rabbi subhanahu wa ta'ala khamriga iyo qamaarka iyo asnaamta iyo faalka waxyaaladaas oo dhan waa qurun iyo shaqo shaydaan ee ka fogaada buu leeyahay rabbi subhanahu wa ta'ala waliibaanaysa qofka dhalinyarada moodaya halka inuu ganacsi yahay ilaahay wuxuu ku leeyahay ka fogow waliibaanaysa waxay ku jirtaa faa'iidadu inaad ka fogaato inma yuriidu shaytaan an yuqi'a baynakum al-'adawata wal-baghdha fi al-khamri wal-maysir shaydaanku wuxuu doonayaa inuu cadaawad iyo isnacayb dhaxdiina uu ku rido khamriga iyo qamaarka oo idinkaga mashquuliyo xuska ilaahay iyo salaada fahal antum muntahun kuwa ka reebtoon ma tihiin buu leeyahay rabbi subhanahu wa ta'ala waxa leeyahay rabbina wa kuwa ka reebtoon ayaanu nahay ilaahay waxaynu weydiisanaynaa subhanahu wa ta'ala mucaamalaadka xalaasha inuu ilaahay nagu sugo kuwa xaaraanta ilaahay